wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaal u dhaxeeya ciidamada xoogga iyo ciidamo ka amar qaata wasiir janan oo saaka ka socda beled xaawo jubbaland oo sheegtay inay la wareegeen gacankuhaynta magaalada beled xaawo ee gobolka gado afduubka loo geysanayo dadka shacabka iyo gaadiidka oo ku batay waddada xidhiidhisa magaalooyinka beledweyne iyo dhuusamareeba israsaaseen xalay ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu dilay mas'uul ka tirsan Jubbaland xubnaha beesha caalamka oo kordhiyay dadaalada la isugu soo dhaweynayo dhinacyada isku haya doorashooyinka Soomaaliya galmudug oo sheegtay in dagaal ka dhacay bacadweyne ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab iyo weerar lagu qaaday militariga Maali warbalii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beeraraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba waa subaxnimo isniina taariikhduna waxay ku beegan tahay 25 bisha koobaad sanadka 2021 warkaas oo dhan saaka waxaa akhrinaysaa wariyaheenna Amaal Yuusuf Macallin علي إبراهيم عبد الله صحيح فؤاد بدو ما سنتهاي مركل صباح ونحسن دقيستيال كسر دواده قضبضة مقشين ودم يسترن دقالوا دحي إذا ما دحوق الدلك إذا ما كان مرقاته وزير جنن يا ساكي كسعده مقلد البلد حاو لين عكله ما ملك جبلان يا شيكتين يلو ريجين قعن كوينت مقلد البلد حاو قبل كجدو عبد الستار حاج علي أياك والرمي wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa ku waramaya in halkaas uu ka socdo dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daacad u ah wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janana dagaalka oo bilowday xalay saqdhexe ayaa saaka aroornimadii mar kale ka qarxay gudaha degmadaasi waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkan uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan Jubbaland ay weerareen degmada beled xaawo ee gobolka gado wararka ayaa sidoo kale sheegay in qasare isugu jira dhimashadii dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi balse ilaa hadda si toos ah looma xaqiijin inta uu leeyahay qasarahaasi iyadoo ay jiraan qasare soo kala gaaray labada dhinac dagaalka ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday taliye ku-xigeenkii saldhigga booliska degmada beled xaawo tiro madaafiica ayaa la sheegay inay ku dhaceen gudaha degmadaasi kuwaasoo wararku ay sheegayaan in laga soo tuuray Mandheera Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa midba midka kale ku eedeeyay in weerarkaasi ay ku qaadeen madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay laanta af Soomaaliga ee BBC ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaasi Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in gudaha ay u galeen magaalada beled xaawo ayna la wareegeen xarumo muhiim ah oo ku yaala magaaladaasi kuwaasoo kala xarunta degmada iyo saldhigga booliska saddexda maalmood ugu dambeysayna ay garanayeen in difaac ay ku jireen magaaladana dusheeda ay fadhiyeen marka dagaal laba dhinac ah ayaa noola qorsheeyay yiraahdeen dhinaca shabaabka iyo dhinaca ciidankii xamar laga keenay oo jabhada ku tilmaamay oo nabadgelyada Soomaaliya ay meesha ku soo gurtay marka dagaalka waa lagu soo qaaday xabadii halka ka bilaabatayna waxay sababtay in magaalada gudaheeda ay ciidamadu isla galaan halkaas ay hadda wax socdaan waxa dagaalamayna ay nasiib darro tahay oo mas'uuliyad xumo ay ka shaqaysay dawladda Soomaaliya ay tahay oo meesha ka dhacday ama dabaq hal la fuuro ama dhul hal la joogo dagaal baa dhacay ciidanka waa la weeraray ayagana ciidanka weeraray way iska soo caabiyeen kadibna magaalada la soo galay magaaladana xabadda way ka socotaa daafaheeda laakiin waxay sheegeen ciidanka Jubbaland inay maaliyaha xarumaha degmada iyo isteeshamada ayaga hadda joogaan ku sugan yihiin wax dhibaato ah ay qabin magaalada magaalo weyn daafaheeda oo dhan ay xabadaha wali ka dhacayaan wallahi wax la yaab leh weeye ciidankaas waa ciidankii 11 sano gada difaaceeda ku jiray dawladihii ku meel gaarka xilligii madaxweyne Cabdullaahi laga soo bilaabo dawladii Sheekh Shariif oo ana xildhibaan ahaan dhisnay xariya ciidan ka soo baxay dawladda caalamiga naga kaalmeeyeen ciidan qarana marka hadii majabhadu ma ku indhaa loo soo duubay oo shabaabka la aruuriyo nabadgelyada xamar laga soo raray baa mas'uul ciidankii dalka xoreeyay oo Soomaaliya u dhimanayay marka asayga la weydiin doona Ilaahay bayna ka furteen kuwa soo hadlay maay wala xabada way dhacayaan bal igu daafaha magaalada xabada way dhacayaan wali ma aha wax final xabad degan magaalada ma degano wali wixii waa socdaa geesta kale wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa dawladda Kenya ku eedeeyay in jabhad falaaga oo ay soo hubaysay Kenya inay u soo talowday xuduudda Soomaaliya ayna weerar ku qaaday degmada beled xaawo ee gobolka Gado wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay si geesinimo leh ugu jilib dhigteen duulaankaas waxaana tilmaamay inuu yahay mid sharci darro duulaankaasi sidoo kale wasiirka ayaa qoraalkiisa ugu dambeyn sidan ku yiri waxaan si adag u cambaarinayaa duulaankaas gardarada ah
ee laga soo abaabulay gudaha Kenya kaasoo khilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xiriirka caalamiga ee ku dhisan isxaaq dhowrka iyo ilaalinta madax bannaanida qarannimo. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya degmadaasi ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland ay dib uga baxeen xarumihii ay ka qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya haatan ay ku sugan yihiin duleedka degmada. xaaladda degmada Beled Xaawo ayaa saaka kacsan waxaana shacabka ku nool halkaasi ay cabsi xoogan ka muujinayaan dagaalka ka soo cusboonaaday Beled Xaawo kaasoo salka ku haya hannaanka maamul ee gobolka Gadow waxaana arrinta gobolka Gadow la rumaysan yahay inay qayb ka tahay caqabadaha ku horgudban doorashada Soomaaliya. cabdistar mahadsanid. afduubka loo geysanayo dadka shacabka iyo gaadiidka ayaa ku batay wadada xiriirisa magaalooyinka Beledweyne iyo Dhuusamareeb. cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya warka. waxaa sii kordhaya afduubka loo geysanayo gaadiidka iyo dadka shacabka ah ee isticmaala wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Beledweyne iyo Dhuusamareeb iyo soodinta ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. gaadiid gaaraya ilaa iyo 6 iyo dadkii saarnaa oo shacab ah ayay kala afduubteen maleeshiya beeleed waayadan ku dagaalamayay nawaaxiga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. taas ayaana keentay inay istaagaan gaadiidkii qaadi jiray bagaashka iyo xoolaha ay isticmaali jiray laamiga dheer ee isku xira gobolada dhexe. afduubka ayaa waxaa sii dheer dadka musaafirka ah ee lagala degayo gawaarida ee haddana la dilayo mana jirto ilaa iyo haatan cid isku howshay wax ka qabashada faralkan oo ah kuwa aan la mahdin. nabadoon maxamed cismaan cusable oo la hadlay Keenan ayaa sharaxaya dhibaatada ka jirta Matabaan iyo soodinta ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. nabadoonka ayaana sidoo kale sheegay dadka iyo gaadiidka haatan maqan waxa uuna ku baaqay in cid kasta ay ka qayb qaadato daminta xiisadan. wadada horta Galgaduud isku xiriirtay Beledweyne ma ahan ilaa wadadaas dheer oo ilaa isku xirta Muqdisho iyo meesha la yiraahdo ilaa Hargeysa tagtaa gaari shalay waa go'an tahay ilaa 4 gaari oo candamidida gaarida waaweyn oo xamuulka ah iyo ilaa 7 qofood afduuba loo haystaa. dhacdooyinka hadda deegaanka ka dhacay oo aad maqlayeen hore u dhacay macnaha andara ka dhacayo labada dhinacba qolada maray qolo ay afduubatay caqabadaas ka taagan dadkaas iyo baabuurtaas waa la haysaa mar haddii meel kale isku qaaqarsadana waxaa dareemi kartaa oo madax furashada ay timaado iyo geed ku xirasha inay goodadu ay furaayin cid maamul oo ama ka qayb qaaday ama xalka raadayna ma jirto. ayaan horta uqaalo iyo waxgarad dadka waxay wax qaban karaan markii fuliin shoobka markay jirto wax fuliya oo amniyaad la shaqeeyaan laakiin qof waxgarad waxay sheegtaa kaliya xal ma noqonayaan haddii aan cid la shaqeyda ay digin qofka wax garanaysa marka 24 saacad oo ay taagantaa inay wax xalidaan laakiin hadda ka hor in waxaas soo xakameeya macnaha waa fududaa wili waa taagan. waxaan ugu baaqayaa qofka islaam oo ummadda ilaahay oo laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah tira waa islaam oo inay arrintaas ay macnaha u soo gurmadaan dadkaas xorriyadooda u soo celiyaan dadkaas labada dhinac oo wax kala tabanayana ay si aslaah iyo walaalnimo ay nabadgelyo u dhaxdhigaan dawladda federaalka iyo labada maamul goboleed iyo culimada diinka iyo waxgaradka intaas waa inay qofka kalaankeeda ay ka qayb qaadato intaas aan ugu baaqayna. afhayeenka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cabdi Muumin Cilmi oo dhankiisa Keenan la hadlay ayaa ka waramaya afduubka sii kordhaya ee Hiiraan ka taagan isaga oo na baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya. wadada u dhaxayso Beledweyne iyo Dhuusamareeb waxa waayii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday wax aan hore u dhicin islaam inaba aan u wanaagsanayn taasoo ah in dhalinyaro Soomaaliyeed ee da'doodu ay yar tahay 20 jiryaal ah waxba aan galabsan dagaal qabaa'il beeleed inta la og yahay siifigooda dimarkii loo raaco ama dadkii xodogaalku ahaa la weydiiyo aan marnaba dagaal qabiil beeleed aan ka qayb qaadan in aanan qabiil loo dilo waa wax ayaa dara ah. runtii waa lahayaa inta aan ogsoonahay waa 3 meel ah iyo 2 meel ah gaadiidka la kala haysto dhanka marka inta u dhaxayso Matabaan iyo Dhuusamareeb dadka gaadiidka jiraahi ama ku tuumeynaahay waa 3 gawaari amaba aan dhaho inta u dhaxayso Guraale iyo Matabaan dadka ay hayaan tiradooda inta aan ogsoonahay waa 4 qofood. dhankan kale toodo inta halgaar iyo u dhaxayso iyo Matabaan u dhaxaysana waxaan ku tuumeynaa in 2 gaari ay taalo kuwaas oo mar dhaw ayagana tirkooda lagu soo wargeliyay in wadadaas laga dayay. cidda aan sideenahay kama muuqan kaalin weyn bay ka geysan kartaa qatartana way soo afdari kartaa waa dawladda federaalka Soomaaliyeed. dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa sheeda ka daawanaya
dilalka iyo afduubka ka jira hiiraan iyo soodinta gobolkaas uu la wadaago galgaduud mana jirta ilaa iyo haatan dadaalla muuqda oo ay wadaan taas oo ah mid wax loogu qabanayo dagaal beeleedkan xilli shacabka deegaanadaas ee odwadaaga ah ay u muuqato kuwa sii kala tegaya maalinba maalinta ka dambaysa. waryahayga cali cilmi salaadaad buu mahadsan yahay. israsaaseyn xalay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay mas-uul ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland. warsoo saareheena saaka cali Ibraahin Cabdullaahi Suxayfa ayaa ka waramay. waxaa xalay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose lagu dilay Cawil Cali Barre oo ahaa mas-uul ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ee ganacsade. Cawil oo ka mid ahaa madaxda dekedda Kismaayo iyo 2 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen israsaaseyn dhexmartay ciidamo ka wada tirsan kuwa Jubbaland. war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in Cawil Cali Barre oo ahaa mas-uul ka tirsan Jubbaland oo ku dhintay israsaaseyn ka dhacday bar control oo u dhoweyn guriga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo. sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu xusay in hay'adaha ammaanka ee magaalada Kismaayo ay ku hoolan yihiin waxa sababay rasaasaasi. magaalada Kismaayo ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay dilka qorsheysan ee loo geysanayo ganacsatada Jubbaland. bishii December ee sanadkii hore 2020 waxaa magaalada Kismaayo lagu dilay dhakhtar lagu magacaabi jiray Yuusuf Axmed. bishii October ee sanadkii hore 2020 waxaa magaalada Kismaayo lagu dilay Cabdullaahi Sheekh Cabdisalaam Shigshigow oo ahaa maamulihii Amal Bank ee magaalada Kismaayo. bishii December 2020 waxaa qarax ismiidaamin ah gudaha Kismaayo ka dhacay lagu dilay Shaafi Rabbi Kaahin oo ahaa ganacsada weyn isla markaana ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland. bishii October ee sanadkii 2019 waxaa Kismaayo lagu dilay Xaaji Saciid Ciise Cabdi oo ahaa ganacsada caanka ahaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dilka ka dhacay dhammaan magaalada Kismaayo ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadooda. waxaa weli soconaya dadaalada ay wadaan xubnaha beesha caalamka kaas oo la isugu soo dhaweynaya dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. waxaana dadaaladan wada wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan. wakiilada beesha caalamka ayaa doonaya in si degdeg ah loo xalliyo muranka arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood iyo midowga musharaxiinta si loo qabto baaliyada doorasho heshiis lagu wada yahay. beesha caalamka ayaa sidoo kale waxay doonaysaa in dhawaan la isugu yimaado shir ku saabsan xal u helidda khilaafka kaasoo dhex mari doona dhinacyada isku diidan arrimaha doorashooyinka inkastoo weli aan la go'aamin halka shirkaasi lagu qaban doono. dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay inay dagaal ka dhacay Bacaadweyn ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Xamse Jaamac Xuseen ayaa ka waramaya. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaal ay ciidamada federaalka Soomaaliya kuwa Galmudug iyo shacabka deegaankaasi oo iskaashanaya ay ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. waxaana wasiirka amniga Galmudug sheegay in halkaasi ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaar ahaan dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay inay ka dileen 20 qof halka 50 kalena ay ka dhaawaceen. marka ciidamo badan oo kuwa dawladda federaalka militariga iyo nabadsuuda iyo kuwa Galmudug ee daraawiishta iyo dadka deegaankuba maanta duuradii ayay la isfarasaaray runtii sidii caadadu ahaan jirtay meesha goobtiina waa laga qabsaday. khasaaro xoogan ayaa naga soo gaaraya inuu gaaray ilaa iyo 50 dad ku dhowna oo ayaga ka tirsan ay ku dhaawacmeen. runtii dagaalde waa khasaaro uu leeyahay anaga dhaawacyo 12 ayaa ilaa hadda hubnaa iyo dhimasho 6 qofooda. marka maleeshiyaadkii kooxihii Al-Shabaab baan loo sheegay in maleeshiyaadkoodii ka dhintay inta aruuriyeen ay leeyihiin waxaa dadkii aan dilnay oo dawladda ka dilnay ciidanka dawladda aan dilnay iyo dadka reer Bacaadweyn oo iskaashanaya ayay yihiin. marka de halkaas naf ka raadiyeen. runtii waxaan loo sheegayaa dhaawacoodii inay xardheero sii wadaan xataa meydkoodii ay rabaan inay xardheere iyo hal meel inay 20 iyo dhowr qof ku aaseen baan loo sheegay. marka de waan wadaynaa deegaamadan Galmudug dhulka ay ka joogaan oo dhan olole xoogan oo meelo badan ka bilaaban doona ayuu hordhac ahaa. dagaalkaasi oo ku dhex maray deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug waxaana hadda gacanta ku haya deegaankaasi ciidamada federaalka Soomaaliya.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xamse jaamac xuseen halka warkaasi aad kala socotaan waa shabakada wararka KNN ugu yaraan 6 askari oo reer Maaliya